waxaa la sheegaa in nin boqor ka ahaa dowlad aad u weyn uu maalin maalmaha ka mid ah uu doonay in uu galo safar aad u dheer. Markii uu safarka ka soo laabanayay ayaa waxaa bararay labadiisii lugood socodka awgiis. Kadib waxa uu amray in dhammaan waddooyinka magaalada la fidiyo maqaar. Hase ahaatee, mid ka mid ah la taliyayaashiisa boqorka ayaa kula taliyay in uu 2 gabal oo maqaar ah uu ku xirto labadiisii cagood si uu uga badbaado gubashada qorraxda ee waddooyinka. Waxaa la sheegaa in xirashada kabaha ay sidan ku soo laabatay. Sheekadan gaaban ayaa waxaan ka fahmaynaa in muhiim tahay in qofku uu dunida ku soo kordhiyo wax cusub oo samayn kara isbeddel muuqda oo wanaag u leh bulshada caalamka. Fadlan haddii uu ku cajab geliyo fiidiyogan, like saar, comment-na ka soo bixi si oo inoogu noqdo dhiirigelin Soomaali ee horumar wacan.